dadweynaha ku dhaqan magaala ganacsiyeedka Puntland ee magaalada Boosaaso ayaa aragti kala duwan ka dhiibtay kalsooni kala noqoshadii ee baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ay ku sameeyeen xukuumadii uu horkacayay ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. waa kuwa kan qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Boosaaso oo fikrado kala duwan ka dhiibanaya arintaasi. walaal Soomaaliya waxa ka dhacay xamar Faysal Axmed Maxamuud Wahaabi baa la yiraahdaa waxaan deganahay Boosaaso muxuu ahaay aragtidayda haddaan ka soo jeediyo wixii xamar ka dhacay wax ceeb ah oo aan Soomaalina aan ficin caalamkana aan ficin wixii islaamana aan ficin baa ka soo baxay xaraan baa ka soo baxday lacagtii abaaraha iyo dadka wabiyadu ku fatahmeen iyo kuwa abaaru hayaan lacagtii loogu gurman lahaa baa hay'adihii dawliga ah lagu burburiyay. waa aragtidii aan shalay ka qabay wax dhibaato ah meesha jirin waa wax fiican in lagu kala adkaado cod hal dheeri ah baarlamaankuna waxay u dhisan yihiin wax fiican baa ka dhacay oo si deganaansho ah oo waana la filayay. wallahi aniga magacayga saddex waxa la yiraahdaa Daahir Muuse Ciise waxaan kamid ahay dadka shacabka oo ku nool magaalada Boosaaso. aragtidayda markaan ka hadlo muxuu ahaayay shalay arintii ka dhacday baarlamaanka Soomaaliya waxay ahayd arrin xaq darro ah oo laga hor imanayo muxuu ahaayay hanaankii muxuu ahaayay dawladnimo. magacaygu waa Cabdulqaadir Yuusuf Daahir jooga caasimadda ganacsiga ee magaalada Boosaaso. waxaan jeclahay in aragtidayda ka dhigto waxyaabihii waayadan dambe socday oo shalay ku soo gaboobay natiijo aan wanaagsanayn oo aan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha jooga gudaha iyo dibadba aan la jeclaysan. arrinta iyada ah waxaan u arkaa inay tahay dib u dhac, waxaan u arkaa inaysan wanaagsanayn, waxaan u arkaa inaysan mid horumar keenaysa aysan ahayn, waxaan u arkaa in dalku uu gelayo dib u dhac iyo wixii hore looga soo gudbay. waxaan aad uga xumahay oo runtii maskaxdayda iyo caqligayga iyo fikirkayga uu qaadan waayay wixii shalay ka dhacay baarlamaanka oo aan u arko cadaalad xumo lagu tuntay dhammaan wixii ama xeerar ha noqdo ama constitution ha noqdo ama wixii lagu heshiiyay oo Soomaali ku heshiisay. magacayga waxa la yiraahdaa Maxamuud Cumar. haddaan si kooban uga hadlo mooshinkii shalay lagu riday ra'iisul wasaaraha waxaan u arkaa in rajadii Soomaaliya laga qabay ay burburtay. Maxamuud Xasan Barre runaantii wixii shalay ka dhacay howlka baarlamaanka federaalka aad iyo aad ayay nooga argagixiyeen. runaantii maana filayn inay dhacayso in ummadii ay Soomaalidu dirsatay madaxda u ahayd inay khilaafayaan dhaartii. أنا وهذا إنجنير هذا جامعة جدود إنجنير هذا Soomaaliyeed jooga Puntland baan ahay. arrinta hadda wax fikirkayga ka dhiibto ama ka hadlo arrin waxay horta qaran dulisa oo arrimaha Soomaaliya dib u dhac u keenaysa xigsiga 16 kale inaan la gaari doonin bay u egtahay sababtoo ah saacad walba iyo waqti kasta hebel ila fikir maahan ama hebel ila mabda maahan hadii ra'iisul wasaare kasta loo qabanayo هذا دنتي لقى لها قرنمada Soomaaliya meesha waa ka baxaysa. anigoo magacayga la yiraahdo Umul Xayr Maxamed Cali kana mid ah bulshada reer Puntland ra'yigayga markii la iga weydiiyay wax sida aan u arko anigu ra'iisul wasaaraha mooshinka ra'iisul wasaaraha laga noqday maxay tahay dawladdiisa waa qalad. mooshinkaas waa xaraan waa maqdac kuma jirto xeerka federalismka kuma jirto in mooshin qof aan xilkiisii ku gafin in mooshin laga keeno waa mooshin sharci darro waa mooshin xaraan waa mooshin lagu iibsaday la iibiyay oo lacag laga bixiyay oo juhdigii Soomaaliya lagu fuliyay weeye. bismillaahir rahmaanir rahiim Maxamuud Saciid Ismaan baa la yiraahdaa. arrintii shalay baarlamaanka ka dhacday waxay ahayd mid cadaalad darro ah oo xaq darro ah oo sanad kasta oo waxa la ridayaa ra'iisul wasaare mid kasta ra'iisul wasaare lagu bedelayaa. anagu waxaan aragnaa wax laga soo abaabulay madaxtooyada inay ahayd oo lagu riday ra'iisul wasaaraha. Ibrahim Maxamuud Yuusuf telefishinka dowladda Puntland Boosaaso.